madaxweynaha xisbiga wadani mustaqbalka dhowna ilaahay hadduu yidhaahdo noqon doona madaxweynaha somalilan waxaan aad iyo aad si sharaf leh ugu mahadnaqayaa maamulka degmada xisbiga wadani oo u horeeya gudoomiyaha ruush iyo maamulkiisa waxaan ku mahadnaqayaa hablaha sharafta leh iyagu saaka aan dhaqaaqin halkaa taagnaa iyaguna aad baan u mahadnaqayaa odayaashaan u mahadnaqaynaa dhallinyaradaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadka halkaa lagu soo dhoweeyey waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihi waxaan ku soo dhoweynayaa oo aan kaga baxayaa gudoomiyaha waxaana leeyahay wadani baynu waxaan leenahay ku soo dhowow horena waa lagu soo dhoweeyey waa lagaa doortay maantana waa lagaa dooranay hadday kalin kula tahay hadday gaari tahay hadday kalqora tahay hadday tahay dacruur tahay hadday berbera tahay inta codkaagu yaallaa waa intaa nidaamda hareerihiisa waxaan leenahay ku soo dhowow horena waa lagugu soo dhoweeyey waa lagaa doortay maantana waa lagaa dooranaya hadday karin kulan tahay hadday geeri tahay hadday kalqora tahay hadday tahay dacruur tahay hadday berbera tahay inta codkaagu yaallaa waa intaa nidaamda hareerihiisa waxaanu doonaynaa cabdiraxmaanow in badan inaad nala joogtaa baanu doonayna laakiin maanta waxaa tahay socod waxaanugulala yaabin saaka haddaannu yar rahay dee dumarkii laxooxaa carruurta u dubaya adeegyay ku maqan yihin waa kala waxaan kuu sheegayaa waxaannu doonaynaa inaad nala ballanto wakhti aad noo timaaddo xalfadaannu ku siinno annagu aan ku macsuunno waa ka bax waqtigaan sharafta leh iyo madaxweynaha waxaan ku soo dhoweynayna salaata islaamkaanu ku soo dhoweynayna waxaan ku soo dhoweynayna lagu sheegayna xalayna inaanu kulmiyo ahayn maantana inaanu wadanayna abtiyaasha in badan waxay yidhaahdaan noomaydaan keenin madaxweynihii mustaqbalkee degmadayada ee gobolka muxuu nagaga maqan yahay ha noo yimaado maantaba ninkii maqanowba diyaar buu kuu yahay basharkuna meel ma wada maree waxaa lagu tartamayaa hawl badan waa inaannu diyaargarowno socodka maanta waxaa u xoog badan kaadhkii in la qaato abdaal waxay maanta joogtaa laalays ayaa sanduuqa ku xiga ayuu yaallaa abdaal iyo laalays iyo darimar ah waa jiid kala dheer ilaa xeebinta ka dhow ilaa dalow leh oo ilaa macaaneeyo leh oo ilaa buurta leh waxaa la doonayaa inay iswacyigelisaan dadkii xoolaha raacaya wacyigelisaan wixii qaangaadhay lambarkow wixii qaangaadhay inay kaadhkii qaataan oynu wakhtiga u jarro dadkii uu ka lumay dadkii kaadhbeddelka lahaa waxaynu cid wax u taraynaa oo qofku codkiisu waxgoynayaa marka uu haysta kaadhka wuxuu ku hiilin karaa kaadhka isku wacyigeliya oo isku baraarujiya oo u soo dhibaatooda oo ku raalli ahaada waa dhib siyaasiyiinteennu anigana ku dhahoo dadkii codka doonayay shalay baan ahaa wax hagardaamo badan iyo dhib baan loo qabtaan waa wax laga bixi doono mustaqbalkuna waa wuxuu baran doono waxaan ku darayaa abdaan anigu hoos baanu ogahay annagoo gola deegaan ahaanna ajandaha kolle ku darsanayna horena noogu jirtay biyola'aanta waan ognahay taallaba biyola'aanta taalla abdaal in foostad biyaheedana qadhaadhaadeen waannu ognahay laydhka waannu ognahay waxa duruuf taallaba waynu ognahay insha allaahu waynu ka baxaynaa isbeddelka iyo siyaasaddu inay qorisudhiib noqotaana waxa ku hormara dadka iyo bulshada ku hormarta haddii shalayta haddaynu reer saaxiil lahay codku dhinaca kulmiye u badnaa abtiyaal iyo habar yaro waxaan idinka codsanaynaa maanta inuu codka wadani bato insha allah waxa aad ii farxad gelinaysa reer abdaal sida diiran ee u soo dhowaysay waftidan ballaadhan ee halkan maraysa ee uu hogaaminaya musharaxu insha allahu tacaalaa hadal badan uma kicin kulle xafiiskii waa idiin diyaar
anigoo ku hadlaya golaha deegaanka inta xisbiga wadani ka soo baxday 4 baanu nahay annagu waxaanu nahay hantidii xisbiga dhiigga ayaanu u shubaynaa ilaa marka ugu dambaysa cabdiraxmaan run baan idiin sheegaya gaadhigii aad codsatay afartayada xildhibaan ee u soo baxay annagaa ballan qaadinoo keenayna aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan u xasuusanayaa odayaashayadii buu ahaa horkacyadayadii xisbiguu ahaa raggii aadka noogu weynaa buu ahaa ee hantidiisa xisbiga geliyey annagana na gelin jiray la gardaadin jiray madaxa noo salaaci jiro saaka halkaa markii laga hadlay si xoogan baan u xasuustay ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiy marka labaad runtii madaxda xisbiga ee uu musharaxa jagada madaxweynenimo dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi hogaaminayo iyo oday cabdi reegal beegsi iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo guud ahaan madaxda kale la socota ee uu dhimbiil ka mid yahay waxaa leeyahay soo dhowaada deegaankiinnii weeyaane si ballaadhan ugu soo dhowaada runtii cabdiraxmaan waa nin waxgarad ah waa nin reer saaxil ah weliba waa nin sii reer madheero ah runtii waa nin aad iyo aad ay dadku ugu kala saaran yihiin oo og nin waliba inta uu xisbiga gashaday waa nin deegaan yaqaana oo dad yaqaana oo aqoon-yahanoo teetalka magiciisa ka horeeya dhagtar ayaa inoo qeexaya aqoontiisa khayrallaha siiya waan uga mahadnaqayaae reer abdaaliya guud ahaan degmada madheere iyo guud ahaan gobolkaba waxaan u sheegayaa runtii abaalka wuu inoo hayaa wuu ina og yahay inaynu la halgannay hadday tahay doorashadii 12kii ee ururada lagaga soo baxaayey iyo hadday tahay tii madaxtooyada ee 2017kii iyo weliba hadday tahay tii golayaasha deegaanka intaba inaynu la soo halgannay wuu garanayaa kuweennii dhintay ee aan xusaayo iyo kuwa iyaga noolba runtii waxay ugu yaallaan diiwaanka oo aad iyo aad ayuu u og yahay degmada madheeraah iyo magaalada abdaalba waxaan leeyahay waannu idin jecel lahay xisbigu wuu idin jecel yahay annagu idinkaannu wax idinku nahay idinkaannu idin matellaa idinkaannu xisbigaasi uu maanta marka deegaankeenna laga hadlaayo lambar 1 idinku tiirsan yahay waxaa laynaga rabaa inaynu ku dadaallo halkii hore uu inoo taagnaa iyo meel ka sii wanaagsan insha allahu tacaala uu inoo taagnaadee soo ballan inooma aha waxaan iyadana hoosta ka xariiqayaa runtii maanta qori lagu tartami maayo oo qoriga kornayladaa lagu yaqaannaaye aqoon-yahannada laguma yaqaanno dhagtar cabdiraxmaan waa aqoon-yahan waxaynu u baahannay inaynu farteenna ugu hiilinno si aynu farteenna ugu hiilinnana waxay inooga baahan tahay si farteenna aynu ugu hiilinnana waxaa loo baahan yahay inaynu kaadharhka qaadanno soo diyaaruma nihin inaynu kaadharhka qaadanno si aynu u muujinno deegaankeenna si aynu codkeenna u muujinno si aynu musharaxeenna ugu soo saarno soo diyaaruma nihin inaynu kaadhka qaadanno waxaa laynooga baahan yahay inaynu kaadhka ku fara adeygno oo ah inteennii aan qaadan ay qaadato inteenna uu ka lumayna ay qaadato aad iyo aad baa u mahadsantihiin idinku haddaa reer saaxil tihiin iyo haddaa weliba reer abdaal tihiin somalilan maanta waxbaa dheertihiinoo waxaa dheertihiin cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi haddaan reer somaliland kaloo dhan nahay isagaana dheertihiin saaxiibbadayaa naga daba yimi qoladii kulmiye oo iyagoo dhuumanayabay kolle magaalada goor dambe soo galeen halkan waxaa looga duceeyey allaha u naxariistee nin xisbiga ku weyn oo dhintay allaha u naxariisto cawil cali sugulle ducada reer kulmiye way ka xanaaqaan oo ducadii maxamed xaaji ibraahim cigaal u soo ducaynay ilaahay ha u naxariistee cadhaday ka qaadeen wax kaleba kamay hadlaynin nimankii diiwaangelinta loo soo diray maxaa cini cigaal loogu duceeyey bay ka hadlayeen waxaan doonayaa imminka inaan hal qodob idiin iftiimiyo waxaa la yidhahaa xisbiyaa la baabiinayaa ama xisbiyaa wakhtigoodu dhacay haddii xisbiyada wakhtigoodu dhammaaday madaxweyneha wakhtigiisuna wuu dhammaaday oday reer burcaabaa waxa la yidhi wakhtigii ingiriiska qofka beenta sheegay waxaa la saari jiray dameer markaa waa la wareejin jiray hebel been buu sheegay dadkuna way ka daba leeyihiin odaygiibaa maalinta dambe dameer la saaro waxa la yidhi been buu sheegay deedna dadkii markay dhahaan been buu sheegay isna wuxuu yidhaha oo yaan sheegin
maanta waxaan idiin sheegayaa saddexda xisbi qaran dalka ka jira ayaa sharciya dhammaan shacbiga degmada Mandheera waanu mahadnaqayaa sidaa la sheegay waanu idinku soo kallahnay iyadoo aanu hawlo badan ku soconno waxaan gobolka Saaxil oo imi kow waa gobolkii aan ka soo jeeday laba degmada Mandheera waa degmadii aan gaar uga soo jeeday marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin martiqaadka degmada ka yimi ee aniga iyo wafdigayga loo fidiyey waanu guddoonnay insha allahu markay diiwaangelintu inoo dhammaato aanu ka dhigi doonnaa waanaannu imanaynaa waana naga guddoon martiqaadkaas waxaanu mahadnaqayaa xubnaha golaha deegaanka degmada Berbera ee halkan inala jooga ee ka jawaabay baahiyihii degmada iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa dadkii ka shaqeeyey munaasabadan iyo tii Lefaruug iyagana si gaar ah ayaan ugu mahadnaqayaa safarka iyagu wuxuu ahaa ama daaranaaba inaannu ka mid noqonno dadka ka wacyigelinta ka qaybgelaya diiwaangelinta gobolka Saaxil weli ololihii muu gaadhin waxaynu u nimi inaynu dadka ku wacyigelinno inay isdiiwaangeliyaan reer Mandheera ama degmada Mandheera shacbigeeda iyo shacbiga gobolka Saaxilba iyo dhammaan shacbiga Somalilandba waxaan ugu baaqaynaa inay isdiiwaangeliyaan qofka muwaadinkii waxaa xaq u yeelanayaa inuu helo xaqiisa dastuuriga ah marka uu isdiiwaangeliyo markaa waa la dooran karaa isaga ama isagaa wax dooran kara waxaa ogaataan shacbiga Somaliland dastuurku wuxuu siiyey awoodda ugu badan oo ah awoodda inay madaxweyne doortaan ama ridaan ama xildhibaan doortaan ama ridaan marka awoodda ugu badan idinkaa leh codkiinnu qiimaha uu leeyahay waa inay ogaataan muuse waynu tartamaynaa muuse xabad ku bedeli mayno laakiin waxaa ku bedelaysaan codkiinna iyo farsiinna sabab si diyaar uma tihidin markaa qof kasta waa inuu helaa wixii xaqa u lahaa oo ah fursadda ah komishanka inoo sheegay dadka la diiwaangelinayo waa dadkii aan hore isu diiwaangelin iyo kuwii qaangaadhay oo ah dad cusub waxaa kuwa la mid ah dadkii kaadharka qaatay waraaqaha la siiyey berigii dhaweyto iyagana waxaa laga soo qaadaya dad cusub oo aan hore isu diiwaangelin dadkii aan qaadan kaadharka 2016 iyo 2021 kaadharka loo sameeyeen qaadanina waxay la mid yihiin qof cusub oo hore isu diiwaangelin qofkii ka lumay waa inuu isna dib isu diiwaangeliyaa qof kasta muwaadin waa inuu hubiyo inuu kaadhkiisii haysto waxaa laga yaabaa anigana ku dhaho 2016 baan qaatay waa inaan hubiyaa kaadhkaygii inaan haysto iyo inaanan haysan dad badan baa laga yaabaa inay waayaan laakiin dadkaasi waa inay isdiiwaangeliyaan inta diiwaangelintu socoto ugu dambayn dadkii doonaya inay kaadharka beddeshaan iyaguna xaq bay leeyihiin innaga reer saaxil waxay u badan yihiin maanta Hargeysa iyo Burco markaa dad badan baa la soo guuri jiray innagu doorasho madaxweyne ku talagelaynaa markaa qof kasta meeshuu doono uu iska diiwaangelinaya
meeshuu ka codayn karaba hadduu hargeysa joogo hargeysu iska diiwaangelinaya maanta uma baahna inuu berbere yimaado ama inuu yimaado Mandheera ka Burco joogaana waa la mid waxaan idinkaga tegayaa dawal la tartamaya saacad wuxuu igu lahaa sheekh la tartama anigu waxaan la hargeysa la tartamay tartanka ayaan laga badinin inna way idinku jiraa in la yidhi aad iyo aad baa u mahadsantihiin.